بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي حيسلا خيارتنا dhegeysanaysa ay ku soo dhawaada wararka telefishinka Hogaanshe waa 13 bisha July sanada 2021 qodobada aan idinku hayo maanta wararka telefishinkana waxa kamid ah imaamkii tuuga noqday ee masjidka ka shaqeyn jiray oo maanta lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta la kulmay guddiga amniga ee doorashooyinka dadban ee Soomaaliya 4 Soomaali ah oo lagu dilay rabshadaha maalintii shanaad ka socda dalka Koonfur Afrika. Xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland oo sheegay inay mooshin ka keeni doonaan maxkamadda sare ee Puntland waa hadii ay dhaheen ay farageliso baarlamaanka Puntland arrimihiisa. wasiirada waxbarashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Soomaaliya oo ku shirsan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waan lagu qaboojinayo dagaal beeleedyo dad badan ay ku dhinteen oo ka socda duleedka degmada Doolow ee gobolka Gado. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin hayaa. aan gudagale nin horey u ahaan jiray imaam masjid iyo macallin dugsi quraan oo la sheegay inuu caado ka dhigtay dhaca dadka siiba uu si xeeladaysan haweenka moobelada dhagaha iyo waxyaabaha la midka uga furan jiray horeyna maxkamad loo soo taagay ayaa maanta waxa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah. ninkaas ayaana lagu helay in uu ugu yaraan 60 fal dambiyeed uu galay, inkastoo la sheegayo in dambiyadu intaas ay ka badan yihiin. ninkan ayaa la sheegay inuu dumarka dahabka ka furan jiray sidoo kalena uu moobelada ka dhici jiray kadibna uu iibsan jiray. sidoo kale ninkaas nin la shaqeyn jiray oo la sheegay inuu moobelada uu iibin jiray ayaa isagana waxa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinka dambe waxa ay wadeen howlgallo ballaaran oo ay wax kaga qabanayaan cabashada dadka reer Muqdisho ay kaga cabanayaan dadka sida xeeladaysan dadka u dhaca iyo kuwa dabcan sida tooska ah dadka u istaaga ee dadka moobelada iyo agabka kale ay wataan ka furto oo ku soo badanayay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta la kulmay guddiga amniga ee doorashooyinka Soomaaliya. guddiga amniga doorashooyinka Soomaaliya oo ra'iisul wasaaruhu madax u yahay waxa kamid ah taliyayaasha ciidamada booliiska ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo dabcan taliyayaasha amniga ee AMISOM. kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa dhinacyadaasi waxa isla eegeen sida ugu haboon ee loo sugi karo amniga doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka bilowdaan dalka Soomaaliya. doorashada ayaa wali waxa ka taagan baa la leeyahay caqabado ka taagan magaalada Garbaharey oo dhawaan uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu hoos geeyay maamulka Jubbaland balse dadka deegaanka gobolka Gado ay aad arintaas ugu gacan saareen. sidoo kale waxaan wali xal loo helin arintii la xiriirtay xubnaha gobolada waqooyi ee maamulka Somaliland oo laba gudoomiye iska soo horjeeda dhawaan doortay. caqabada saddexaad ayaa iyana waxa lagu sheegay in beesha caalamku ay ka meermeerayso inay ilaa haatan bixiyaan dhaqaalihii ay doorashada ugu talagaleen. 4 Soomaali ah ayaa lagu dilay rabshadaha ka socda dalka Koonfur Afrika. rabshadahaas ayaana waxay socdaan maalintii shanaad. rabshaduhu waxay ka bilowdeen Jacob Zuma madaxweynihii hore ee dalka South Africa oo lagu xukumay ama maxkamad ay ku xukuntay 15 bilood oo xariga. dadka Soomaalida ee la dilay ayaa lagu dilay gobolka Durban ee madaxweynahaasi ka soo jeedo. 4 qof meydkooda ayaa la sheegay in ilaa haatan la aasin. dadka Soomaalida ee deegaanka Durban ku nool ayaa waxa la sheegay in isugu ururayaan meelo gaar ah halkaas oo ay dawladda Koonfur Afrika ka codsadeen in lagu ilaaliyo. qaar badan oo kamid ah dukaamadii Soomaalida ayaa halkaas lagu boobay. dawladda Koonfur Afrikana maanta waxay amartay in militariga dalkaas lagu sii daayo magaalooyinka waaweyn si ay amniga u ilaaliyaan. ilaa haatanse wax weyn kama suuroobin. xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland waxay maanta sheegeen inay mooshin ka keeni doonaan maxkamadda sare ee Puntland oo la sheegay in madaxweyne Deni uu adeegsanayo sidii uu hakin lahaa xeer ay dhawaan baarlamaanka Puntland ansixiyeen. maxkamadda sare ayaa isu diyaarinaysa inay jabiso xeerkaas la sheegay inay baarlamaanku ansixiyeen. xeerkaas oo sheegaya in xasaanaadka qaadida xildhibaanada iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay noqonayso 44 xubnood halka ay markii hore ka ahayd 34 xubnood. madaxweyne Deni xukuumaddiisa iyo qaar kamid ah xubnaha baarlamaanka ayaa isku dayaya inay hor istaagaan xeerka haddii si kale u joojin waayaan ayaa la leeyahay waxa suuragal ah in mooshin laga geeyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa halkaasna xilka looga xayoobiyo. in xildhibaan la ceyriyo ama gudoomiyaha baarlamaanka xilka laga qaado ayaa Puntland waxay ka tahay wax caadi ah. arintaas oo aan inta kale u badnayn maamulada kale ee dalka Soomaaliya ka jira iyo dawladda federaalka.
wasiirada waxbarashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maanta waxay ku shirsan yihiin magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Shirkan ayaa inta badan waxa la sheegay in diiradda lagu saarayo khilaafka joogtada ah ee mar walba u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland ee la xiriira arrimaha waxbarashada. Puntland ayaa looga maarawaayay inay aqbasho in ay ka mid noqoto imtixaanka shahaadiga ee dowladda Soomaaliya ay qaado. Puntland ayaa mar walba waxay ku dacwootaa in imtixaankeedu uu gaar u noqonayo taas oo maamulada kale ee dalka ka jira aysan la qabin loona arko maamul waan lagu qaboojinayo dagaal beeleedyo maalmahanba ka socday deegaan u dhow magaalada Doolow ee gobolka Gado ayaa la sheegay in halkaas odayaal iyo dad badan ay ku baxeen. xiisadda ayaa la sheegay inay maanta degan tahay balse mar walba waxaa laga cabsi qabaa in dagaalku uu mar kale qarxo maadaama la sheegay in beelihii halkaas ku dagaalamay ay isu hub urursanayaan. Maamulka gobolka Gado iyo ciidamada dowladda federaalka gobolka Gado ka jooga ayaa aad ugu dadaalaya sidii xiisaddaas loo dejin lahaa. In ka badan 20 qof ayaa ku dhintay 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaaladan oo maalmahan socday kuwaas oo ka dhashay dhul beereed ay beelo ku dagaalameen. jamhadda la yiraahdo TPLF ee gobolka Tigreegana waxay maanta sheegeen inay mar kale ku sii siqayaan gobolka koonfureed ama koonfurta gobolka Tigreeg halkaas oo ay sheegeen in ay qabsadeen magaalada la yiraahdo Kareem oo 170 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Maqale. magaaladaas Kareem ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku hayaan maleeshiya ciidamada ismaamul goboleedka Amxaarada oo qabsaday bishii November markii halkaas uu dagaalku ka socday. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ciidamada fallaagada ayaa waxay sheegeen inay sidoo kale qabsan doonaan magaalada la yiraahdo Alamata oo ah magaalo aad u weyn isla markaana 20 kilomitir dhanka koonfureed ka sii xigta magaaladaas ay sheegeen inay qabsadeen. ciidamada Amxaarada ayaa isku dayay inay difaacdaan deegaanada ay ku qabsadeen dagaalkii bishii November. dowladda Itoobiya iyo ilaa haatan kama ay hadlin waxayse wali ku adkaysanaysaa in xabad joojintii hore ay ugu dhawaaqday la dhaqangeliyo. wararka telefishinka hogaanshan akhyaaray maanta waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.